haddii ilka lagu dhigo inta lagu soo rogo dadku ay dareeraan dacaskooda sanqadhaan degdeg u maqlaysaa dadyow xishoodo alliinka yaabo aakhirana xasuusto بسم الله الحمد لله أنا بهرين dadkii soo qabanqaabiyey iyo dadkan ka fiican intiinaba waa idin mahadnaqaya iyo gaar ahaan hotel guuleed oo caawa albaabadaba u xidheen labada albaaba waa xidhan yihiin yani hudhaalkii ma shaqaynaya intiinan unbuu ayuu soo dhoweeyey sida cinwaanka hore u maqasheen su-aashaas ayaynu jawaab u daydayna waa kuma hogaamiye hoggaanku ama alqiyaada waxaa af carabiga lagu yidhaahdo alqawdu naqiid sawq bay yidhahdeen xoolaha qofna xagga dambuu ka kaxeeya qofna xagga horuu ka wada qiyaadadu waa cidda xagga hore ka wada ee hagaha u ah ereygu af soomaali ahaan af carabi ahaan af ingiriisi ahaan waxaad moodaa inuu macno qura tilmaamayo leadership iyo alqiyaada iyo af soomaaliga laftiisa oo ah hogaamiye ama horseed ama gadhwadeen waxaad tidhaahdaba waa isku wada macno ku dhadhow waa macnayaal dhammaantood isku dhadhow oo ah dad ama ummad ama koox ama guri wax kastaba ha ahaadee qofka gadhwadeenka u ah terminologicalina ma ka gedisna macnaha lugawiga ah waa qof dad ama koox hogaaminaya ila alhadaf yoolkii ama goolkii ama dantii iyo qasdigay lahaayeen ku wada af carabi ahaan weel yaroo kooban bay ku tilmaamaan qiyaadada ama leadershipku inuu yahay oo ah alqudra calaa taxriiki اnnaas naxو alhadaf awoodda la awoodo in dadka loo dhaqaajiyo yoolka iyo goolka ay leeyihin meesha ay u socdaan cumuuman markaynu idhaahno qaa'id dadka inta badan madaxiisa waxaa ku soo degdega hoggaanka guud ee ugu sarreeya political leaderka laakiin hoggaanku waa cid kasta oo dad hoggaamisa gurigu hoggaamiyuu leeyahay wanaaggiisa iyo mustaqbalkiisa iyo badhaadhihiisa khitada iyo u hor socda dugsigu hoggaamiyuu leeyahay iskuulku hoggaamiyuu leeyahay jaamacadda hoggaamiyay leedahay shirkadda dhaqaale hoggaamiyay leedahay waxay doontaba ha noqoto idan hoggaamintu waa in dad la hago oo ama hoggaamin dhaqaaleed ha noqoto ama mid maamil ha noqoto ama mid siyaasiya ha noqoto waxay doonaysaba ha noqotee haddaynu inta guud ama islaamku siduu u arko si kooban u tilmaamno nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxayna faray saddex qof hadday safar u baxaan inay mid hoggaamiye ka dhigtaan ama maamule waa saddex qof oo safraya safarku waa wakti yar buu qaataa waxay taasi tilmaamaysaa bini aadamku noloshiisa inaanu ka maarmin cid hagta xataa wuxuu nebigu leeyahy saddex dhul bannaan jooga uma bannaana ilaa iyo inay mid madax ka dhigtaan oo u haga mooyaane haddii unugga ugu yari uu haga u baahan yahay unugta weyne bulshana waxa macruufa inay hagis u baahan tahay haddaba su-aal baa taalla ay aqoon-yahanadu isweydiiyaan wakhtigan dambana leadershipku ama hoggaamintu waa takhasus cilmiya oo in badan la dhigo waa takhasus nadariyaad badan leh su-aalaha koowaad ee ugu muhiimsan ay isweydiiyaan waxaa ka mid ah hoggaamintu ma wax loo dhashaaba ma fitriba mise waa muktasab waa wax la barto
ma xirfad loo tababartaba mise waa abuur loo dhasho? markaynu su-aashaa isweydiinayna waxa weeyaan hogaamiyuhu ma qof intaynu tababaro aynu soo saarayno innaga hogaamiye ka dhigayna, mise abuuro ahaan ayuu u dhashay oo abuurkiisa ilaahay subxaana wa tacaala siduu u abuuray ayaa ah sifo leh dhaqan hogaaminimo. weliba si kale haddaan usii tilmaamo, bini aadamka waxaa la yaqaanaa dhaqamadiisa dhammaantood wax badan oo ka mid a akhlaaqiyaadkiisa iyo sifaadka bini aadamka wax badan oo ka midi wax loo dhasho weeyaan. wax badan oo ka midina waa wax la barto, waa wax qofka lagu train gareeyo. maalan dulqaadku waa loo dhashaa, dadku wuu kala dulqaad badan yahay, laakiin haddana nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa inama alxilmu bitaxallum, waa wax la isbari karo. wainama asabru bitasabur, in qofka bini aadamkii intuu mumaaraseeyo isku dayo inuu baran karo buu tilmaamaya. walidalik baa qolada psychologyga waxay tilmaamaan, ama qolyahan leadershipka ka waramo oo dhami waxay sheegaan, waxay yidhaahdaan the bell distribution. markay human behaviorka iyo dhaqamada qofka bini aadamka ka warramayaan, waxay yidhaahdaan waxaa jira waxa la yidhaahdo bell distribution. belku waa sidan uu samaysan yahay jarasku, dawankan yare la garaaca siduu u samaysan yahay. oo waa maxay? waxay leeyihiin aadamaha sifaadka uu dhaqan ahaan u leeyahay waxay doontaba ha noqotee 1 to 2% 1 ilaa 2 waa wax loo dhasho. inta soo hadhay 96 ilaa 98 waa wax la baran karo. 1 ilaa 2 way adagtay in la bara bay leeyahay, ama suurtagalka maaha. misaal ahaan qadiyadan aynu socono waxay leeyihin dadka abuur ahaan ayaa boqolkiiba 1 ilaa 2 ay u dhasheen inay qaado noqdaan. sifaadka qiyaadadu waa abuur ka mid ah oo rabbi uu ku abuuray. 1 ilaa 2na bay leeyihin wax kasta haddaynu ku akhrino qaado kama dhigi karno, iyagana baabkaasi waa ka madow yahay. 96 ilaa 98 laga gaadhaya inta u dhaxaysaana waxay leeyihiin waa dad la tababari karo, qofba intay doonta ha u joogtee waa la tababari karaa ilaa iyo in laga dhigo qof qaa'ida inuu noqdo. xataa haddaynu taariikhdii islaamiga ka dib u milicsano, nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam saxaabada badh buu ku yidhi weligiin waxa maamulina. qaarna markay soo islaameen maalmo kadibba maamul baa loo dhiibay. qaarka la yidhi weligiin waxa maamulina waa rag ka mid ah raggii ugu horreeyey islaamaha. maalan abi dar oo kale waa saxaabada waaweyn ka mid ah. nebi moxamed uu ku tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam asdaqu lahja inuu yahay. haddana waxaa lagu yidhi laa ta'muranna cala 2, 2 weligaa madaxa u noqon buu nebigu ku yidhi. 2 qof madaxa u noqonin, cidna ha liidh garaynin. cagsigeeda rag baa markay soo islaameen ban yaray joogeen baa loo dhiibay maamul oo saxaabo dhan dagaal geliyey. camar binu caas iyo khaalid ibnu waliid iyo rag ka mid ah. macnaheedu maaha khaalid iyo camar inay ka alla ka cabsi badnaayeen ama ka cilmi badnaayeen abidar. waxaa la filayaa intaba inuu abidar kana cilmi badnaa markay cilmi noqoto. dadka lagu tirinaya inuu saxaabadii saabiqiintee hore u islaamayna uu ahaa. haddana nebigu wuxuu tilmaamay inaanu qaa'id noqonin, inaanu cid maamulin. taa macnaheedu waxa weeyaan wadaad baan ahay oo cilmi sharciyaan leeyahay kuma dhaxal siinaysa inaad qaa'id noqoto. wadaad baan ahay oo cilmi sharciyaan leeyahay oo sifaadkii qiyaadadana waan leeyahay ma kaa reebaysa inaad madax noqoto.
innaga laba daraf oo kale fog bay dadku inta badan taagan yihin. kooxda mala wadaadada ay wuxun bay rajaynayaan inay iyagu ka mudan yihiin qolada tan aan weysadoodu badnayn. cagsigana qolyahan kale maamulada iyo waxaan soo waday waxay u haystaan wadaadku inaanu xaqba u lahayn in wax maamulo, bal wadaadka siyaasadda doonaya ayaa laga bilaabaya kaanama aanu qiyaadada isagoo xaq u lahayn. idan waxaan leenahay sifaadka qiyaadadu haddii lagaa helo ama wadaada haw ama ha ahaanine waxaa suurtagala inaad qaa'id noqon karto, inaad u dhalatay baa suurtagala sifaadka qiyaadada. waxaa kaloo suurtagala inaad ka mid tahay bulsho weynta tababarka u baahan ee haddii la tababaro qaa'idka noqon karta ama hormoodka noqon karta. 96-98% ka kale inaad ku jirto. haddaba waxay yidhaahdaan qaa'idku maalan John Maxwell waa wadaad kristan ah, waa minister kiniisadeed, yani waa sheekh kaniisad hogaamiya masiixiya ilaa PhD-giisa masiixinimadaas iyo wixii la halmaala theologigeedu ku qaatay. laakiin markii dambe leadershipkan iyo waxaan ragga wax ku qoro weeyaan, oo bugagtiisa qaarkood waxay dhahdaan 1 milyan oo copy baa la iibsaday. ee wuxuu leeyahy weedhuu leeyahay leaderku is one who knows the way, goes the way and shows the way. hogaamiyuhu waa qofka garanaya buu yidhi waddada hogaaminta qof garanaya kuna dhaqmaya. dadka badh baa jira intelligenta, caqli badan, wax badan garanaya, laakiin lazy ah, aan irbad dhuub gelin karin. walidalik ardada jaamacaadka maalan markaynu soo qabanno inaad higher degree ama percent sare ku baxdo 90 above cream student inaad tahay, A+ inaad tahay, macnaheedu maaha inaad hogaamiye noqonayso. macnaheedu waxa weeyaan inaad wax badan fahmayso. walidalik baa waxay yidhaahdaan CEO-yada dunida marka la eego in badan oo ka midi waa ardadii C ku baxday iyo D iyo meelaha. C iyo D soo meel dambe maaha, laakiin waxay yidhahdaan waa rag hardware karis ah, waa dad shaqo, waa managers ma aha leaders. in badan oo ka midi managerka iyo leadernimaduna waa kala laba, maamule iyo hogaamiye waa kala laba. waxay leeyihin hogaamiye waa nin waddada garanaya, jidka uu socdo waa nin garanaya. waa mar labaadee waa nin kartida ah leh inuu jidka maro, waan lazy ahayn. waa mar saddexaade waa nin dadka tusi kara. dadka badh baa jira sifaadkii aqoomeed leh, jidku uu u cad yahay, kartida loo waddada mari kara, laakiin mudhmudhlo aan laba qof kaxayn karin. yacni inaad naabiq tahay oo caqli badan tahay oo karti badan tahay kama laasimto inaad hogaamiye noqon karaysid. tusaale yacni koox gaagaaban haddaad adigoo dheer la socoto waxaa laga yaabaa meeshay wax ka arkayaan meel ka fog asabsha kaa qaado inaynu ka arki karo ninka dheeri. kuwan maxaad ku odhanaysaa kula arki kari waayey, iyagu ma arkaan waxaan aad arkayso. inaad qanciso oo dee kaxayso iyo inaad tidhaahdo war kuwani qaar wax garanay maaha adigu mudhmudhlayso, labada mid un bay noqonaysaa soo maaha. haddaad kuwan qancin karto qaadi kartid oo kaxayn kartid hogaamiyaa tahay. haddaad se dadkaaga qancin kari weydo walow aad aqoontii iyo kartidii leedahay hogaamiye noqon kari maysid buu ku tilmaamaya. si kale haddaynu u tilmaamno marka waxay yidhaahdaan Alexander bay ka sheegaan, Alexander the Greatkii hore bay waxay yidhaahdeen, wuxuu yidhi waxaan ka cabsi qabaa kama cabsooda buu yidhi ciidan libaaxiya oo laxi hor socoto, laakiin waxay cabsi geliya buu yidhi ciidan laxa ah oo libaax hor socdo. yani wuxuu tilmaamayaa leadershipku muhiimadda uu leeyahay. nabaliyunna eraykaa ku dhadhow bay ka sheegaan oo ah koox libaaxiya ah oo bakayle hogaaminaya
naf ma laha buu leeyahy waxaa naf leh koox bakaylayaal oo libaax hogaaminayo. yacni labadan ninba waxa ay emphasize-ka saarayaan, waxay qiimo weyn siinayaan liidarku bulshada halka uu ugu jiro, oo haddii liidar fiican uu bulshada helo inuu hogaamin karo. haddaba ma jira qayb muktasaba, qayb la barto? haddaynu nidhi waa jiri kartaa, ma jiri kartaa cagsigeena qayb fitriyo qofkuu ku dhasho? ha nabigu calayhi الsalaatu wasalaam ashaji cabdilqays qabiilkaa nin ka tirsanaa ayaa uu nebigu wuxuu ku yidhi waxaad leedahay laba khaslo ama laba sifo oo ilaahay jecel yahay. waxa weeyaan buu nebigu ku yidhi alxilmu walanaa, waxaa tahay nin dulqaad badan oo kaadsiiye badan oo hubiya. waa laba sifo oo ammaana, qofku inuu dulqaadna yeesho, qof xubsanaya oo kaadsiiyelena uu ahaado. wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyow, ma laba sifoodoo ilaahay ugu abuurayba? ma waxaan dhalasho kula helayba? mise waa waxaan iktisaabay, waa waxaan kasbaday oo xoogsaday? wuxuu nebigu yidhi maya, waa laba lagugu abuuray. ilaahay baan mahadinayaa buu yidhi, wuxuu jecel yahay waa abuuray. laakiin tajribadu iyo waayo aragnimadu way sii soofeeyaan wixii loo dhashay, oo sifaad kartiyo aada u dhalatay hadday tajribana gasho way sii qurux badnaataa. haddaba leadershipku siyaabo badan bay u eegaan. nadariyaad badan oo qoladan dambe ee cilmi baadhistooda nadariyaad kala gedisan bay leeyihin. qaar le duruuftaa abuura, qaar le bii-ada korisa, qaar le waa mawaaqif la qaato, qaar le waa wax loo dhasho, qaar le waa sifaat qof kastoo laga helaa uu liader noqon karo, qaar ilaa 8-9 nadariyadood oo kale nooca, fiiriyo kala jaada baa jira. maalan nimanka aadka uga warrama waxaa ka mid ah John Adair nin la yidhaahdo. John Adair waa nin ingiriis ah oo qoray book la yidhahdo leadership of Muhammad. kontineeye book waa leeyay, waa professor macruuf ku ah leadershipka, waa nin mudarib ah. yani leadershipku maanta waxay ka dhigeen laba qaybood. qaybi waa waxaan jaamacaadka lagu barto, qaybna waxay dhahdaan waa tadriib, waa tababar, waa training. coachaj baa jira markaa dadka train gareeya oo maamulanimada u train gareeya. shirkaadka waaweyn, wasaaradaha, dowladaha, waxaasoo dhammi waxay qaataan tababar ah leadership. ninkani wuxuu ka mid yahay tababarayaasha dunida ugu waaweyn, ilaa 1 milyan oo qof baa tababarkiisa ka baxay. dad iyaga gaarka u tababaro waxaa ka mid ah United Nationka maamulkooda oo dhan, jaamacaddoodan Torino ku taalla. waa professorka maamulka iyo leadershipka u qaabilsan. bug buu qoray uu kaga warramayo nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam iyo liidernimadiisii, qiyaadadiisii. laba wax baa kala jira inaynu nebi moxamed rasuulnimadiisa ka warranno, rasuul ilaahay soo diray inuu yahay, iyo inaynu ka warranno cabqarinimadii uu dhashay ee sheegaysa sifaadka qiyaadiga ee uu leeyahay. ninka kane wuxuu tilmaamaya sifaadka uu leeyahay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ee tilmaamaysa inuu hogaamiyey. nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam taarikhda bini aadamka hogaamiyaashii soo maray waa hogaamiye ugu weyn baynu odhan karnaa inta taarikhda qoran aynu hayno. waayo onefield hal takhasus hogaamiye kuma ahayn. wuxuu ahaa hogaamiye siyaasadeed, wuxuu ahaa hogaamiye dhaqaaleed, waxaa hogaamiye ummad amaamuday sameeyey ummadda gebigeedba, wuxuu ahaa hogaamiye hogaamiyeyaal soo saaray. yacni jaanib kastoo noloshiisa laga eego hormuud buu ahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam. wuxuu leeyahay marku uu tilmaamayo qiyaadadii nebiga waxa uu ku tilmaamayaa awalu sifaat uu sheegaya waxaa ka mida buu leeyahy sifatu raaci, sifada xoolo jirnimuu lahaa buu leeyahy. xoolo jirka iyo maxaa iskaga xidhan? wuxuu odhanayaa a good shepherd guides his sheep. ninka xoolo dhaqaa qowsaarka ahi
xoolaha uu raaco wuu ilaaliyaa, wuu ururiyaa, welfarekooda iyo wanaaggoodu ka fakeraa, waxa iyaga dani ugu jirtuu yeelaa. yacni ninka maalan adhi raacaya waa u sahamiyaa, meel dooglu geeyaa, waa ururiyaa, bahalkuu ka celiyaa, midhmidh buu u kala yaqaanaa, teeda liidatuu iyo teeda qodaxdu muddo iyo tu kastuu garanayaa, mid waliba waxay u baahantahay buu garanayaa. waa qof danta xoolahaasi ay leeyihiin si fiican u ilaalinaya. wuxuu leeyahy qaa'idka dhabta ahi ama horseedaha dhabkaa ama halyeyga dhabkaa ama hogaamiyaha dhabka ahi waa ninka sida xoolaha loo raaco bulshadiisa u raaca buu leeyahy. nebiyullaahi moxamedna calayhi salaatu wasalaam xadiidkaynu wada naqaan buu yidhi alaa kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raaciyati. mid kastoo idinka midi waa xoolo jire, waa raac, waa qof wax la raaciyey. qof walibana wuxuu mas-uul ka yahay ciddii la raaciyey. imaamku buu leeyahy wuxuu mas-uul ka yahay ummadda la raaciyey. ilaahay uu soo gaadhsiiyey nebigu guriga odaygaa mas-uul ka ah, odayga gadaashi qofka dumaraa mas-uul ka ah, carruurtaiyo inta soo hadhay. qof walbana aakhire waxa la raaciyey waa la weydiinayaa. nebiguna calayhi salaatu wasalaam waa ka xadiid kale ku tilmaamaya maa min nabiyin ilaa waqad raaca alghanam. ambiyada isagoo ilaahay hormoodnimada u tababaraya bini aadamka ayuu nebigu wuxuu leeyahy nebi ma jiro ilaa iyo xooluu soo raacay. adhi baa la raaciyay ambiyadoo dhan buu nebigu ku tilmaamaya. xataa adiguna ma raacday bay yidhahdeen ilahi rasuulkiisiiyo, xataa aniguna waan raacay buu nebigu sheegaya. waa qof buu leeyahay dadkiisa wax la qaybsada. dabeetana wuxuu tusaale u soo qaadanayaa qiso suwaad ibnu ghaziya. suwaad ibnu ghaziya waxaa la tilmaamaa dagaalkii beder markii uu nebigu dadka safayey buu ninku yidhi soo baxsan safka si fiican u gal. dabeetana ushuu ku muday wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo waxbaad yeeshay, marka waxaan rabaa inaan kaa goosto. nebigu calayh salaatu wasalaam intuu marada caloosh ka qaado u yihi gooso. dabeetana nebiguu dhunkaday, waxba kamuu goosanine. marka ninkan gaaleed waxa uu qadiyadan u daliishanayaa sida uu ula dhaqmo qaa'idku bulshadiisa. axaadiisu albani ku tilmaamaya inuu xasan yahay. idan qaa'idka namuudajigii buu leeyahy qaa'idka tusaale ahi waa qaa'id waa nin tawaaduc badan ama isdhuldhig badan aan isweynin iyo iskibrini ku jirin, isla markaana ummaddiisu ay ixtiraam u hayso. waa qof aragti leh oo aragtidana dadka ka dhaadhicin kara, u taagan dadka uu hogaaminayo khidmadooda iyo waxtarkooda. ilaahay qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamayaa nebiyullaahi moxamed laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana. ku dayasho fiican baa idinku sugan ilaahay rasuulkiisa. qaa'id buu idin yihi. aayaddani waxay soo degtay ghaswat laxzaab. ghaswat laxzaab waa critical problem muslimiinta qabsaday. dunidoo dhan baa isugu tagtay wixii agagaarkooda deganaa ee quraysh lahaa, ee carabtii kale reer baadiyaa lahayd, qabaa'il waaweyn oo kale khatafaan iyo kuwaasi leh, yahuud 3 qabiiloo ka tirsan leh. dad badan baa isu tegey muslimkaoo dhowr kun oo qof ah, waxaan 3 kunba ka badnayn oo madiino degan, in mar dabka la saaro. mushkiladdaa iyo nebigu siduu u xallilay waynu taarikhda in badan wada maqalnay. saxaabada la tashaday, go-aan ay qaateen markii dambe inay god magaaladaba kusoo wareejiyaan qeybta bannaan. dagaalkaas waa dhirindhiriyey nebigu calayhi salaatu wasalaam, saxaabada kala qayb galay, godka la qoday, ciidda la guray, wax walba la qabtay. markii dambe politicale ay isku dayeen kooxahan ka soo horjeeda inay kala jebiyey. dagaalkaas sidii uu maamulay baa ilaahay wuxuu leeyahy laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana. ilaahay rasuulkiisa waxaa idinku sugan ku dayasho fiican baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala liman kaana yarju allaha walyowma alaakhir wadakara allaha kaiira. haddaba john adir isagu wuxuu ku tilmaamayaa sifadaasi raaciga ama xoolo jirnimada iyo sifadaa inuu yahay tusaale lagu dayan karo. oo isagu wuxuu odhanaya diiwaaniyadiisii meeshii goobtiisa xafiiseed albaabadu way u firaayeen buu leeyahy, dadkoo dhami way soo gelayeen.
oo cid nebi maxamed calayh salaatu wasalaam dadka ka celiso ka teeday iyo askariya waxba toona muu wadanin wuxuu kaloo lahaa buu leeyahay ru'ya vision iyo tawjiih hanuuninuu dadka hanuunin karayo dib baan wax ka tilmaami doonaa aan se soo qaato laba professor ama laba aqoon-yahan oo maraykan ah ninkan hore ingiriis buu ahaa mid Posner baa la yidhaahdaa midna Kouzes baa la yidhaahdaa Jim Kouzes iyo Barry Posner waa laba nin oo takhasuskan leadership-ka leh waa laba nin oo ka mida dadka wax tababara waa laba nin oo jariidadan maalan Human Resource magazine-ku Barry Posner waxay ku tilmaamaysaa inuu yahay 20 nin uu ka mid yahay dunida human resource thinkerska ugu influential ama ugu saamaynta badan inuu ka mid yahay waa laba nin oo lagu tilmaamo coachingkoodu 50 nin ee ugu coachnimo fiican tababarka qiyaadaadka ama leadershipka la tababaro inay ka mid yihiin waxay qoreen book la yidhaahdo The Leadership Challenge waa book award winning ah jaa'isaad ay ku qaateen abaalmarin ay ku heleen waa book ka mid ah best selling leadership bookska waqti ugu fiican ee la iibsaday waayo waxay yidhaahdaan over 2 million copies baa laga daabacay ama se la iibsaday book takhasus ah inta badan buugagta sheekooyinka iyo riwaayadaha iyo bulshadoo dhammi buugagta ay akhrido ayaa malaayiin laga iibsadaa laakiin buugagta takhasusaadka ku saabsan takhasusku doona ha noqdo buugagta takhasusaadka ku saabsani dad go-an baa barta inta badan waxaa daneeya dadka shaqada haya ama fieldkaas arday u ah laakiin buug noocaas oo kale inuu over 2 million copies la daabaca waxay tilmaamaysaa qiimaynta uu ku leeyahay bulshada dhexdeeda si kale waxay u tilmaamaan inuu ka mid yahay abidba 100ka buuga business ku saabsan mid ka mid ah 10ka buuga ugu sarreeya ku saabsan bay yidhaaheen leadership buu ka mid yahay buuga kani waa research waa field research baaritaan soddomeeyo sano socday oo ay samaynayeen labadan professor oo ay aadanaha baadhayeen iyo maamulayaasha iyo madaxweynayaasha iyo dadka wax hoggaamiyey ay baadhayeen waxay ku tilmaamayaan waxay bilaabeen baadhistooda tan 1982 editionkii koowaadna waxay daabaceen 1987 editionkiisii shanaad 25 years later bay daabaceen 2007 2002 alif baa haddana la daabacay soo duuduub buugga kani wuxuu ka mid yahay bugaagta aadka loo ictimaado isla markaana waa labada nine leh LBI-ga lagu qiyaasaba leadership-ka LBI-gu waa waxaan ay ku tilmaamaan leadership practices inventory waa tool 360 assessment ama questionnaire ka samaysan oo ka mid ah tuulasha ugu fiican ee loo adeegsado baaritaanka liiderrada markay baadi doonayaan tuulalka loo adeegsado tuulasha ugu fiican mid ka mida bay leeyihiin baaritaankan markay wadeen ilaa 3 milyan oo qof bay interview ka qaadeen qiyaas 3 milyan oo qof waxay dhahaan 75,000 oo qoraal baa soo gaadhay kuway waraysiga ka qaadeen oo qura maahee qoraalada tuulashoodii loo buuxiyey waxa soo gaadhay 75,000 oo qoraal nimankani waxay rabeen inay baadi doonaan dhaqan hoggaamiyeedku hoggaamiye iyagu waxay ka mid yihiin inta badan qaybta rumaysan wax la bartay inuu yahay waxay ka warramayaan dhaqanka hoggaamiyuhu waa kuma fiican ee ummad guul gaadhsiin kara dadyowgii tirada badnaa ay waraysanayeen waraysiyadoodii waxa uga soo baxay dadka waxaa la weydiinayaa yaad jeclaan lahayd inuu hoggaamiyahaaga noqdo hoggaamiyahaaga inuu sifaadkee yeeshaa baad jeclaan lahayd bulshada dunida ku nool xataa ilaa 1,500 oo mudiir CEO dad maamulayaal sharakaadka waaweyn iyo waxaa hoggaamiye ah ayaa ka mid a dadka ay questionnaire-ka weydiinayeen idan bini aadamka waxay warsanayaan maxaad jeceshay inuu hoggaamiyahaagu noqdo inuu sifaadkee yeesho qofka maxay ah ayaad ku qanacsantay inuu hoggaamiyahaaga yahay
waxaa jira markaa wax ka mid ah traits sifaadka bini aadamku uu leeyahay iyo wax ka mid ah practices mumaarasaadka la baran karo oo labadaba ay dadku tilmaameen. sifaadka ay dadku tilmaameen ee ugu horeeya waxaa ka mid ah honesty. sifada ugu badan ee la tilmaamay waa al-amaana, daacadnimo. waxaanu jecel lahay liidarka yagu ama hogaamiyaha yagu inuu daacad noqdo, inuu honest noqdo, inuu aamin noqdo. sifada labaad ay tilmaameen ee ugu badani waa competence, kifaa'a, hawkarnimo, aqoon shaqeed inuu leeyahay. sifada saddexaad ay tilmaameen waa forward looking or forward thinking, qof mustaqbalka ka arki kara, qof aan gomadiisa iyo intan ku xeeran un la caqli ahayn, qof sahamin kara mustaqbalka ummadda iyo meeshay u socota arki kara. dadka badh baan aragtidoodu dhaafin. dee innaga marka la joogo waa reeraha iyo intan ku wareegsanaya inahanuun meel durugsan aan wax ka arki karin. nimankii 3 milyan ee qof ay ka qaadayeen kuwa shineerkaasi u dhiibayeen LPI-gooda ay wax ku weydiinayeen, natiijadii u soo baxday waxaa ka mid ah ciddaa dadku ay rabaan inuu qaa'id noqdo sifaadka ay ka rabaan waxay ugu horraysiinayaan inuu yahay honesty, daacad, qof aamina, qof mukhlisa. qur-aankana in badan baa ku aragteen masaladaasoo laga warramayo. kuwa shaneerkii markaa 5 qodob baa ka soo baxay. oo koowaad waa from 1987 to 2012 waxay ururinayeen. statisticskaas buuggooda 3 goor bay jadwal ku qoran. buuggu waa ilaa 350 page. 3 jadwal oo kala nooca baa ku qoran. mid ay 1987 markii koowaad ay edishakii koowaad ay buugga soo saareen ka mid ah, mid ay 2007 soo saareen, iyo mid ay 2012 soo saareen. intaaba waa questionnaire-kii ay dadka la daba socdeen. waxa uga soo baxay sifada koowaad ee ay dadku ka rabaan qaa'idkoodu inuu yeeshaa waxa weeyaan inuu honest yahay, qof daacada inuu yahay, qof aamina inuu yahay. sifada labaad ay ka rabaan waa vision, qof aragti leh inuu yahay. ru'ya, meesha loo socdo waa gadhwadeene xaggu dadka ku wado, qof ay u muuqato inuu yahay. sifada saddexaad ay tilmaameen waa inspiring, qof dadka u waxyoon kara ama ilhaamin kara ama guubaabin kara, dadka waxa uu la rabo gaadhsiin kara. sifada afraad ay tilmaamaya waa competence, kafaa'a, howlkarnimo qof leh inuu yahay, shaqada qof gudan kara inuu yahay. sifada shanaad ay tilmaameen dadku ee ugu badani waa adakaa'u wanubuuq, intelligence, inuu intelligent yahay, qof caqli badan inuu yahay. 5taas sifo waxay leeyihiin dadkii babliga ahaa ee 3 milyan ee qof waxa u batay sifaadka ugu badanee ay ka rabaan qaa'idkoodu inuu yeeshaa waa kaa. ama ha noqdo waxuu u dhashay ama wax loo train garay ha noqdo, laakiin akhiiran waa inay noqotaa sifa nafsiya, khuluq, akhlaaq, dhaqana uu leeyahay waa inay noqotaa. inuu qof aaminayay, qof aragti leh inuu yahay, qof karti leh inuu yahay, qof intelligenta inuu yahay, qof inspiration samayn kara, dadka kicin kara ama howlgelin kara ama ra'yigiisa qancin kara u gudbin kara inuu yahay. su-aalaha waxay kaloo weydiiyeen 1500 oo mudiir, leaderskii ama managerskii dunida hogaaminaya 1500 ka mid ah ayay su-aalahan weydiinayeen. waxay weydiinayaan markaa su-aalo ku saabsiisan hogaamiyahaad rabi lahaydeen muxuu yahay. waxyaabo badan oo kala gedisan bay sheegeen markaa. dabeete markii dambe
iyagaa waxay u qoreen sifaat waxay dhaheen kuwiina ka kaalaya liiskaa akhriya nin walba maxaad u horraysiin lahayd sifada koowaad aad ka rabta hoggaamiyahaagu muxuu yihi sifada ugu sarraysa ee dhammaantood ay tilmaameen maamulayaashii caalamkee la yaqaanay waxay leeyihin waa credibility waa mistaaqiya kalsooni in qofka lagu qabi karo qofka in kalsooni lagu qabi karo iyaga laftooda waxay qoreen bug la yidhaahdo credibility how leaders gain and lose it bug ay u bixiyeen bay qoreen qofku in lagu kalsoonaada qaa'id aanad ku kalsoonayne hadduu ku hoggaaminayo wuxuu sheegayaana kaa dhaadhici maayaan xaggu ku wadana xataa hadday sax tahay ma rumaysnid haddaanad rumaysnayna dee taageeri maysid innagu waxa ugu badan haddii dadka lasii dacaayadeeyo oo lasii maago oo shaadhka laga sii siibo oo kalsoonidaad dhulka gelinaysaa hadday kalsoonidu dhulka gasho he can lead ma hoggaamin kara dadka markaa waxay tilmaamayaan hoggaamiyuhu waxyaabaha ugu weyn aanu ka rabnaa bay leeyihin waa inuu noqdo qof kalsooni lagu qabo waxay leeyihin kalsoonida maxaa sameeya hoggaamiye lagu kalsoon yahay oo dadku raciyadiisu ka dambayso inuu noqdo maxaa sababa waxay dhaheen laba shay haddii laga helo kalsoonidaasi meeshay taallaa waa maxay labada shay waa truth telling bay yidhaahdeen inuu run sheegayo qof run sheega inuu yihi oo aan been lagu baran hoggaamiyuhu hadduu maalin walba intuu khudbadayo dadka been u sheego oo shalay kii uu sheegay haddana berrita ay been kala noqoto oo haddana maalinta dambe uu khudbadayo oo been kala sheego waxay leeyihiin marada ka dhacaysa wuu qaawismaya mara ka dhicista waxa weeyaan dee kalsoonidaadii baanu helaynin therefore he can lead you kuma hoggaamin karo muxuu noqonayaa haddaanu ku hoggaamin karaynin wuxuu noqonayaa john maxwell ninkii la odhan jireen hore idinku soo tilmaamay baa wuxuu leeyahay bug la yidhaahdo the 5 levels of the leadership shanta herarkiya leadershipku uu leeyahay shan p wax la yidhahdo isticmaala wuxuu leeyahay heerka koowaad waxaa la yidhaahdaa position buu yidhi positionku waa maxay right to lead isagu inuu ku hoggaamiye xaq buu u helay yacni kursiga dee maamulkuu helo wuu fadhiyaa adiguna waa maxay waxaad u daba socotaa you have to buu leeyahy wax kaloo aad qabataanad haynin waad ku qasbantay natiijada ka dhalanaysaa maxay tahay buu leeyahy waxaa ka dhalanaysa buu yidhi the minimum energy iyo the minimum effort inaad bixiso inta ugu yaree taxillatulqasamuna shaqaalaha iyo wasiirada iyo dowladda iyo dadka inta ugu yare uun aanay ku dambaabaynin bay la imanayaan idan waxa koowaade laga rabaa bay leeyihin qaa'idku waa kalsooni waa credibility waa mistaaqiya mistaaqiyadaasi waxay ku imanaysaa bay leeyihin inuu qof run sheegaya yahay iyo trustworthy qof aamina nebiyullaahi moxamed calayhi الsalaatu wasalaam risaalada ka kaalay intaanu rasuulka noqonin maxay carabi u taqaanay الصaadiq alamiin that means credibility buu bulshadiisa ku dhex lahaa mistaaqiyadii buu lahaa labadan nin baxdigay 1500 ee mudiir soo weydiiyeen waxa weeyaan qofka haddii la rabo inuu leader noqdo shayga koowaad aanu ka rabnaa bay leeyihin waa credibility waa mistaaqiya mistaaqiyadaasi waxay ku imanaysaa bay leeyihin inuu qof run sheega yahay nebiguna calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu ina leeyahay saddex aakhiro ilaahay maalinta qiyaamaha ma daahir yeelo oo ma eego oo cadaab kulul bay leeyihin saddex ciqaabood baa loo sheegay maalinta qiyaamo inay saddex guruuboo leh laa yusakiihim ilaahay ma dahiro walaa yanduru ilayhim ma eego il naxariisa kuma eego cadaab kululna way leeyihin saddexda tani waa maxay waa saddex waxoo mid walba wixii laga filayey waxaan ahayn lagu hayo midi wuxuu nebigu yihi waa shaykhun zaan oday weynoo zinaysanaya nin weyne xalaashaabuu u taag lahayo hadduu zina u sii kaco dee waa meel daran idan sheekh
sheekhu waa yacni qof sinni weyna qof da-ah oo haddana zinaysanaya waa cebadoon ka labaad wuxuu nebigu ku tilmaamay waa melikun kadaab boqor ama madax beenaalo ah trustalinkii baa laga laayay nin madaxa oo beenaalanimo dadku ay ku bartaan iyana wuxuu leeyahay saddexdaa qiyaamaha beledu ku dhacaysu ka mid yahay ka saddexaadna wuxuu nebigu yihi waa caa'ilun mustakbir wax ma hayste haddana kibray bini aadamka kalaa ina alinsaana la yadqaa an ra'ahu istagnaa baa ilahay yidhi bini aadamku wuxuu qooqaa markuu ama sulto helo ama lacag helo ama markuu dee dabaqada sare ku biiro ayaa laga yaabaa inuu kibro laakiin midaan waxba haysanay hadduu kibirka bilaabo dee wax looga fadhiyey maaha haddaba qaa'idku si uu noqdo qof lagu dayan karo qudwa si uu noqdo waa inuu credibility yeeshaa credibilityguna wuxuu ku salaysan yahay alsidqu waalaamaana qof run sheegaya oo amiin ah waa inuu yahay walidalik baa ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamayaa wuxuu shaqo u diray rabbiyo dham inay ammaanadaa lahaayeen malakuljibriil iyo rusushii loo soo waxyoonayay rasuul walba qur-aanka muxuu ku leeyahy inii lakum rasuulu amiin ammaanu sheeganaya nazla bihi ruuxu lamiin muطaacin hama amiin jibriil baa ilaahay ammaano ku tilmaamaya nebi moxamed calayhi الsalaatu wasalaam baa wuxuu leeyahy alaa ta'manuunii waar miyayd inay aaminaynin wa ana aaminu man fi الsamaa iyadoo rabu الsamaawaat waxyiga igu aaminay miyaydaan idinku aaminayn buu nebigu leeyahy calayhi الsalaatu wasalaam waxaa ka mid a khudbadihii uu nebigu jeedin jiray anas ibnu maalik baa wuxuu leeyahy nebigu khudbad nooma jeedin ilaa weedhaa jiray khudbadda nebiga ku jira maxaa ka mid ahaa laa iimaana liman amaanata lah iimaan male dhammaystiran cidda aan ammaano lahayn walaa diina liman laa cahda lah diinna male qofkaan ballan lahayn haddaba waxaynu leenahay wixii ay inoo sheegeenee baxhi cilmiya ay ku gaadheen waa waxa ay diintuna inoo sheegayso oo qaa'idka inaynu ka rabno inuu noqdo qof amiinah inaynu ka warrabno inuu qof kafaa'a leeyahay waxaa laga yaabaa inuu amiin noqdo laakiin aanu kafaa'a lahayn nin wadaada oo dhowrsoon oo xaaraanta iska ilaalinaya oo aan dadka xuquuqdooda ku xadgudbayn oo aan waxba cunaynin laakiin aan lahayn howlkarnimadii looga baahnaa ee qiyaadadu u baahnayd cagsigu waa dhici karaa mid kafaa'o badan inaynu helo laakiin tuuga weliba dhibta waxay taagantahay meel aan waxba oolin markuu tuug ka noqdo dee markiiba waynu isku dhegaynaa waxay yidhaahdaan habar norwegia waxay tidhi corruptionku idinkoo qura idinma haysta bay tidhi yurubba madaxdoodu bay tidhi waa corrupted waa dad tuugo ah laakiin waxay tidhi annaga xagga yaga keeggaa weyn oo qofba dhinac buu ka cuna gacmaa layslama soo gaadho idinkase bay tidhi keeggaa yaroo markuu midin qaado ka labaad dee derbigu ku dhegaya marka waa haddii waxa la hayaana yaryiin walow kafaa'a lahay kafaa'aba lahaa waa tuuganimo ku darto dee markaad qaaddo waa bes waa isku marhanaynaa waxba ka soo hadhi maaya idan waxaynu leenahay qaa'idka aynu raadinaynaa kow labadan sifo waa inuu yeeshaa waa inuu ammaano yeeshaa ilaa xaddin maa ka labaadna waa inuu kafaa'o yeeshaa qof mas-uuliyaddan qaadi kara oo wax maamuli kara waa inuu yahay waa inuu leeyahay baynu leenahay credibility mistaaqiya inuu leeyahay kalsooni dadku inay ku qabaan inay dadku kalsooni ku qabaan waxa abuura baynu leenahay ammaanada iyo truth telling bay leeyihin nimanka kale inuu aamin yahay iyo inuu saadiqiyo inuu run sheegayo haddaba haddii aynu weyno 2% ama 1%kii qaa'idka rasmiga ah xataa kuwa kale waa jafjafi karnaa haddii laakiin ay noqdaan dad wax baranaya haddii ay noqdaan maxay dad wax baranaya walidalik bay nimanka kani ee buuggooda waxay ku soo bandhigayaan 5 qodob waa ay leeyihin waa practices waa mumaarasaat waa dhaqamo qofku uu isbari karo hadduu dhaqankaa la yimaado bay leeyihin leader buu noqon karaa
walow aanad markii hore ka mid ahayn kuwii lagu manaystay u dhashay aad ka mid tahay 96 up to 98 kii kale aynu sheegaynay laakiin ogsoonow dee belku jelasku siduu u samaysan yahay haddii 2% tahay xaggana 2% tahay waa loo sii kala dhow yahay 2%ka u dhashay iyo 2% aan u dhalan labada waa loo dhow yahay dee ila bahalku waa circle dheer oo sidaa sare usoo samaysanay dad baa jira haddaynu in yar ku kabno markiiba qaadan noqon karaya hogaamiyaal fiican noqon karaya laakiin waa inay noqdaan dad trainingka iyo waxbarashada iyo kobcinta u diyaara maxay ku tilmaameen waxay leeyihiin waxay u baahan yahay qof kasta oo cid hogaamiya hadda hogaamintan waxaa ka mid a shirikaadkan dhaqaale kuwa hogaaminaya ha noqdo shirikaadkeenna xawaaladaha kuweena kan telecommunicationka kuweena kan tijaarada kuweena kan ilayaba waxay u baahan yihiin leaders inay noqdaan dadka hor socda waxaynu u baahannahay hadday leaders noqdaan dhaqaalaha waddankaa si fiican u kobcaya waxaynu u baahannahay kuweena siyaasiyiinta inay leaders noqdaan ninka sare oo qura maaha waa maca kuwa ka hooseeya wasiirada agaasimayaasha maamulayaasha maareeyayaasha waxaan oo dhan waxaynu u baahannahay wasaaraddeena waxbarashada macallimiinta principaliska dadkan waxan oo dhan waxaynu u baahannahay nolosha bulshada aynu ku nool nahay oo dhan haddii ay inugu yaraadaan maba yaro horta 1% oo boqolkii kunba dee 1,000 oo qaa'idaa ku jira ama 2,000 oo qaa'id oo abuur ahaan u dhashay laakiin hadda dhowr iyo 90 kale laftoodaaynu tababari karnaa haddaynu ku talagalno inaynu waxbaranno shantan sifo ay leeyihiin haddii la baro shantan sifo mid waliba laba shay bay commitments bay yidhaahdaan 10 commitments iyo 5 practices bay ku tilmaamaan laba commitment haddaad la timaado halka suluuka loo baahan yahay waad la timi bay leeyihin ka koowaad waxay yidhaahdaan waa model the way bay yidhaahdaan model the way macnaheedu waa maxay waa tusaale noqo haddaad hoggaan meel u hayso tusaale noqo waxay yidhaahdaan your deeds afcaashaada ayaa ka cod dheer hadalkaaga bay yidhaahdaan dhaqankaaga haddaan maanta o dhan idin khudbadayo idhaahdo ummadda waxeeda waa in aan la cunin ummadda waxeeda waa in la ilaaliya dabeetana ay aragtaan anigoo haddana ku xambaaran laba guri iyo waxoogaa kale dee waxba dhegaysan maysaan soocankaa maaha waxay yidhahdaan ficilkaagaa ka cod dheer maxay odhaahdaada haddaad rabto markaa bay leeyihiin in lagu aqbalo aada leader noqoto sifada koowaad aanu kaa rabnaa waxa weeyaan ama mumaarasada koowaad aanu kaa rabnaa waa model the way bay leeyihin inaad namuudaj noqoto tusaale inaad noqoto macnaheedu waxa weeyaan bay leeyihin in ficiladaadu ay ka cod dheer yihiin maxay warkaaga tacbiir ka qoto dheer kaas bay leeyihin waxay yidhaahdaan if you don't believe in the messenger you don't believe the message bay yidhahdaan if you don't believe in the messenger rasuulka haddaanad rumaysanayn warkuu sida miyaad rumaynaysaa haddaad tidhaahdo rasuul maaha qofkaasi ama mid laguu soo diraad leeda cidi kuma soo dirin min rumaysid in laguu soo dirayba mar haddaanad rumaysanayn in kii la soo diray uu yahay miyaad ka dhegaysanaysaa markaa warku sido idan waxay leeyihiin qofka inaad rumaysaabaa waxay ka horaysaa inaad rumayso maxay ballanqaadyadiisa iyo dee hadalkiisa iyo khudbadihiisa inaad rumayso kaasaa ka horeeya haddii bay leeyihiin uu qofku namuudaj noqdo tusaale hadduu u noqdo bulshaduu hogaaminayo maxaa soo baxaya respect and credibility buu helayaa bay leeyihin isaguna bulshadu way ixtiraamaysaa waanay kalsoonidoodana way siinayaan hadduu isagu sifadaa yeesho bay leeyihin bulshadu they respect him way ixtiraamayaan credibilityna mistaaqiyana way siinayaan kalsoonidoodana way siinayaan haddaba sidaad namuudaj u noqon kartaa saa tusaale u noqon kartaa laba commitment ha lagaa helo bay idhaahdeen kow committka koowaad waa inaad value leedahay qiyam akhlaaqiyaad iyo dhaqan waa inaad leedahay oo bulshada aad u sheegaysaa values inaad waddo nebi moxamed calayhi الsalaatu wasalaam muxuu lahaa
inamaa bucistu liutamima makaarima alakhlaaq dhaqan fiicnida inaan dhammaystiraa la soo diray qiyamka iyo valuega daacadnimo leh kalsooni leh runsheeg leh ammaano leh qiyamkaa waa inaad borobogeyd garaynaysaa waa inaad faafinaysaa ka labaadna waxay idhaahdaan waa sadda example adigu waa inaad tusaalaa noqotaa labadaa commitment haddaad qaadato bay yidhaahdaan waad noqonaysaa maxay model dawaygii waad noqonaysaa hogaamiyihii ama tusaalihii waad noqonaysaa waxa ay leeyihiin dee ilaahay qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamayaa in badan rabu الsamaawaati wاlardi baa wuxuu ina leeyay yaa cibaadii inii qad xaramtu dulma calىa nafsi wajacaltuhu baynakum muxarama falaa tadaalamuu ilaahayna ma odhanoo qura dulmiga ha samaynina si aynu u yeello inaynan dulmi samayn baa ilaahay wuxuu ina yidhi anigaa iska mamnuucay inaan dulmi sameeyo aniga ayaa iska mamnuucay inaan dulmi sameeyo haddaba idinku dulmi ha samaynina ayuu rabbi inoo tilmaamaya macnaheedu waxa weeyaan ninka madaxda ah haddaanu isagu noqon ninka wax dulminaya haddaanu noqon ninka wax hadaya haddaanu noqon ninka beenta sheegaya hadduu isagu tusaalaha noqdo dadkuna kalsoonidooday siinayaan waana ixtiraamayaan ilaahay qur-aanka laba goor buu ereyga maqti ah maqtigu waa cadhada adag ku sheegay waa goormiyo goorma yaa ayuha aladiina aamanuu lima taquuluuna maa laa tafcaluun kabura maqtan cinda allahi an taquluu maa laa tafcaluun wardadow maxaa mu'minow baa ilaahay yidhi maxaa u odhanaysaa waxaydan samaynaynin been ha sheegina baa layna leeyahy waxa aad sheegaysaa ha noqdo waxaad adigu samaysay baa ilaahay leeyahy waxa aad sheegaysaa ha noqdo maxay waxaad adigu samaysay si awgeed buu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu lahaa inan nebi maxamed hadday wax hadda buu nebigu yihi gacantaan jari lahaa yacni gurigaygaan ka bilaabi lahaa faamiligayga ayaan qaanuunka marka hore ku fulin lahaa dadku markaa way aqbalayaan qaanuunku inuu fulo madaxweynuhu hadduu qoyskiisa ku fuliyo qaanuunka inta ka dambaysa ma muran baa ka taagan in lagu fulinayo idan liiderku waa inuu noocaa noqdaa qur-aanka ilaahay wuxuu inoogaga warramay xiwaar dhex maray nebiyullaahi ibraahim iyo rabu الsamaawaati wاlard nebi ibraahim baa ilaahay wuxuu yihi waan imtixaamay imtixaan baan geliyey waid ibtalaa ibraahiima rabuhu bikalimaatin faatamahunna baa ilaahay yidhi imtixaankii wuu ku guulaystay nebi ibraahim la imtixaamay markuu nebi ibraahim imtixaankii ka soo baxay ayaa ilaahay wuxuu ku yidhi inii jaaciluka linnaasi imaama dadkan madax kaaga dhigaya imaam qof lagu daydo ayaa dadka u noqonaysa nebi ibraahim wuxuu jeclaystay dhashiisa dambana inay sidaasoo kale noqoto qaala wamin duriyatii buu yidhi ilaahow intaan dhalayna ilaahay uu jawaabo waxaa lagu yidhi laa yanaalu cahdi الظaalimiin baa ilaahay ku yidhi walow nebina ha dhale aniga ballankaygu ma gaadho inta dulmiga samaysa baa ilahay leeyahy subxaana wa tacaala idan qofku hadduu namuudaj tusaale hadduu noqon waayo waa practice la sameeyo bay leeyihin waa tadriib la tababari karaa cidda madax noqonaysa oo lagu tababari karo inay dad value le noqdaan examplena inay iyagu valuega ku noqdaan kadib bulshadu ixtiraam iyo kalsooni bay u haynaysaa warkoodana waa la aqbalaya si awgeed baa ilaahay ambiyadii sifaadkaa lahayd ayaa nebi maxamed maxaa lagu yidhi ulaa'ika aladiina hada allah fabihudaahum iqtadih baa ilahay yidhi kuwaasi waa kuwii alla hanuuniyey ee jidkaa raacay hanuunkooda ku daya baa ilaahay yidhi iyagu waxay erey bay soo koobanaa DW s yacni ereyada ugu horeeya jumladda tan bay soo qaataan ay yidhaahdaan waa waxaanu rabno do what you say you will do bay yidhaahdaan senteniskaasay inta eraya ugu horeeya intay soo qaadaan ayay cinwaan uga dhigaan meesha tan wixii aad tidhi waan samaynayaa samee bay leeyihin nebiyullaahi shucayb muxuu yidhi markuu dadka la hadlay wamaa uriidu an ukhaalifakum ilaa maa anhaakum canhu in uriidu ila alislaaxa ma اstaطactu wamaa tawfiiqii ila biاllah calayhi tawakaltu wailayhi uniib mar raba buu yidhi waxaan idinka reebay inaan anigu idiin weydaarto yacni anaa ah exambleka iyo modelka anaa idiin ahaanaya buu leeyahy waxaan raadinayaa waa islaax iyo wanaag intaan awoodo waxay yidhaahdaan
nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam markuu qaadada soo saarayey waxa uu isticmaalay wax kasta oo ummadda faray intaanay ummaddaba farin isagaa sameeyey. hawl kastoo ay qabanayeenna wuu kala qayb qaatay. hadday dagaal tay wuu la galay intuu koofiyaddiisa qaatay dagaal iyo hubkiisa. hadday god la qodayo tay wuu la qoday khandaqiyo wixii markii la samaynayey. hadday gaajo tay wuu la gaajooday. saxaabigii u yimi isagoo dhagax caloosha ku xidhay nebigu intuu cabarada caloosha ka qaaday ayuu tusiyey isagoo laba dhagax nebi maxamedna xidhan iyo gaajo daraaddeed. ka warran madaxweynahagu hadduu laba dhagax soo xidho maadaan shan xidhanayn markaa dabcan waa tusaalu kuu noqday. gaajadu ku damqi maysa marka. nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam modal buu u noqday wax kasta oo uu farayey. masaajid baynu dhisanaynaa buu yihi markuu madiine yimi jaajuurkay waxii dhoobada iyo waxay gurayeen buu isna gurayey. waa la gurayey isagoo madaxweynihii ummadda ah iyo rasuulkoodiiba ah. idan haddaad rabto in dadka kaa dambeeya ay ku raacaan oo aada noqoto tusaale fiican, nimankan gaaleed waxayna leeyihiin bractiska koowaad ee lagaa rabaa waa model dawey bay yidhaahdeen. jidka adigu tusaale u noqo. waxa labaad waxay yidhaahdeen waa inspire a shared vision. dadka wajhada iyo meesha loo socdo wadaaga, aragti midaysan yeesha, ummadda hanuuniyo meeshaad u waddo ha kula fahmaan. meeshaad u waddo ha kula fahmaan. waxay dhahdeen mas'alada tani iyadana commitmentska iyagu qorteen. laba commitment haddaad samayso bay leeyihiin visionka waa yeelanaysaa. waa envisioning the future iyo inaad mustaqbalka arki karto iyo enlisting others kuwa kale inaad liisgaraynayso ay ra'yiga kula wadaagayaan. si kooban haddaynu u tilmaamno waxa weeyaan qof indheergarada noqo. qof indheergarada intellectualkaynu sheegno ama indheergaradku waa maxay? indheer ayuu garanayaa weeyaan. qof in fog arki kara inta caamadoo arkaysa ha arkin, meel durugsan arag. ka labaadna waa maxay? waxa aad arkaysana dadku ha kula wadaagaan. haddaad dadka qancin kari weydo oo aada noqon weydo qof, waxay idhahdaan tuuliska ugu fiican ee uu adeegsado liaderku waxaa ka mida bay idhahdaan alithaaba waltahdiid waliqnaac bay idhahdaan. abaalmarin iyo ciqaabid iyo qancin bay idhaahdaan. dee systems kastoo jira, nidaam kastoo jira saddexdan shay buu adeegsadaa. groupka si fiican u shaqeeya in la abaal mariyo, ama ha la dhilfiyo, ama wax la siiyo, ama ha la dallacsiiyo, ama in la abaal mariyo. cidda si fiican u shaqayn weydana maxay? in iyana ciqaabteeda la siiyo la abaal mariyo. iyo bay yidhaahdaan tuulka saddexaad ee uu adeegsada liaderku waxa weeyaan bay yidhaahdaan waa tuulka ah aliqnaac. inaad dadka qancin kartid. ninkii dheeraa iyo nimankii gaabnaayo wada socday aan sheegayay weeyaane haddaad dee waxaad arkaysa dadka tusi kari weydo you can't lead, markaa ma hogaamin kartid. broceska saddexaad bay yidhaha ama practiceka saddexaad u baahan yahay liaderkaynu ka rabnaa waxa weeyaan challenge the process bay yidhahdaan. challenge the process. qof halkaa uun ku haynaya ha noqoni. mudiiradu ama maamulayaashu barjadka iyo intanunbay iswaafajiyaan, intaasay ku ekaysiyaan oo waa wadaa shaqada. laakiin hogaamiyuhu waa qof la rabo dadka inuu raro. laakiin dadka inaad rartaa mushkilaad tiro badan baa kaa hor imanaya. challenge baad u baahantahy. sidaa awgeed waxay yidhaahdaan broceska inaad challenge garayso ama takhyiir isbeddel inaad raadisaa laba shay bay u baahantahy bay dhahaan. ka koowaad waa search for opportunities. raadi fursadaha nololeed. ha quusan weliga. hays odhanin there's no way wax la yidhahdaa ma jiro. there is a way. whatsoever bulshada ay ku sugantahay there is a way. hogaamiyaasha dunida la yaqaano xataa kuwa maadiga ah meelaan waxba ka jirin bay wax ka dhaliyeen. waddankan yaree hong kong la yidhahdo waa taqaaniin. dunida dabadeedii ku yaalay marka loo eego bulsho iyo dhaqaale iyo wax walba. dee dhulna waa 24 kilomitr. maxaad u malaynaysaa waddan u baahday inuu ciidda soo dhoofsado? ciidda guryaha lagu dhiso maleesiyuu ka qaadan jiray.
aduu qiyaas waddan ciiddana soo dhoofsanaya muxuu haystay waddankaa ciidda soo dhoofsanayay maanta wuxuu ka mid yahay waddannada dunida ugu dhaqaalaha sarreeyuu ku jiraa ugu horumarsan buu ku jiraa around 2,000 wax ku dhodhow oo technical schoolisa buu leeyahay bay yidhaahdaan qiyaas adigu isku waddan yaroo intaa leeg nin qaa'idaa 20 sannadood hogaamiyey oo cid walba dhaafay ra-iisul wasaarihiisu waxaan filayaa 5 madaxweyne ama 5 nin ee dunida ugu mushahar badan ee madax wax maamushuu ka mid yihiin waa waddan 24 kilometer square dhulku haystaa weeyaan waxay yidhaahdaan qaa'idku he should challenge waa inuu noqdaa qof nolosha challenge garaynaya qof isku dayaya inuu caqabaadka ka tallaabsado taa macnaheedu waxa weeyaan waa qof furas raadinaya ibxath can ilfuras nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam 13 sannadood bay quraysh iyo intii ku xeernayd diidanayd 15 qabiil buu isu soo bandhigay inay aqbaleen oo diiday markii dambe dhalinyaro ansaari aqbashay that chance fursadda qudhe uu helay ayuu dowladda islaam ku sameeyey saxaabadiisii hijireeyey magaaladii u diray ducaad sii hagaajisa dowladda dhan ee islaamiga dunida gadiday 1 chance uu helay isagoo 15 chances waayey fursad waayey hal chance uu helay buu ka faa'iideeyey idan qaa'idku bay yidhaahdaan kow waa qof search for opportunities bay yidhahdaan waa qof raadinaya furaska raadinaya ka labaadna waxay yidhaahdaan waa experiment and take the risk ha cabsan ee tijaabi oo risk iska qaado wax kastoo nolosha ka mida waxay yidhaahdaan cidda riskiga diidda yacni dhibaatooyinka cidda ka baqataa horumarka ma gaadho xataa shirkaadka dhaqaale shirkaadka muqaamarada sameeya muqaamaro xisaabsan ayaa dhaqaaluhu kobcaan meel kastoo aan muqaamaro ka jirin profitku 1 iyo meelahaasi ku warwareega meelaha had iyo goor dagaaladu ka dhacaan iyo waxaan ka dhacan waa riski midhan laakiin meelahaasi waxaa laga yaabaa 50% inay gaadho ama 100% inay gaadho profitku walidaalika waxay dhahaan riskiga iyo profitku way wada socdaan soomaalidu maxay ku maahmaahdaa barti yaqaan bari uma korodha bay yidhaahdaan waa yacni waa niman challenge garaynaynin nolosha haddaad intaad taqaanuun ku warwareegtid waanad hore u soconin maaha cayaaraha ay ku tilmaamaan aan 2 cayaarood idiin sheego macnaheedu markaynu leenahay fursad raadi waxay yidhahdaan guushu waa 2 shay oo la isku daro waa fursadda iyo diyaargarowga baa la yidhaha hadday fursaduhu ku hor yaalliin laakiin adigu aanad diyaar ahayn hore u socon maysid haddaad adigu diyaartay laakiin fursadda aad weydana socon maysid guushu bay yidhahdaan waa labadaasoo wada kulma waa inaad fursaddiina aad la kulantay adiguna aad diyaar u tahay oo qof muqaamaro galaya oo ka faa'iideynaya inaad tahay bay yidhaahdaan waxay yidhaahdaan waa fursa iyo muqaamara muqaamaradu jarska xornimo maaha taan sheegaynaa yacni ninka jaska cayaara muxuu sameeyaa soo jaska ma taqaaniin shatranjka cayaartan la yidhaahdo jasku waa in go-an buu qof waliba marka hore deginshiyo lama degee sida shaxdeen oo kale shaxdeena way ka horeysaa jaskoo dee iyadana waa godkana waa la degaa laakiin kan marka hore degin tuurku wuu qoran yahay in go-an baa askartaadiya waxaa gu yaallay guurista laakiin la guurayo qofku wuxuu ka fekeraa taa haddaad guurto maxaa jawaabtu noqonaysa maxaa soo baxaya markaasaa waxaa kuu soo baxaya intaas oo probability ixtimaalaad tiro badan askariga haddaad guurto kaasuu guuri karaa kaasuu guuri karaa kaasuu guuri karaa kaasuu guuri karaa kaas alternatives tiro badan ixtimaalaad markaasaa waxaad isweydiinaysaa kaa hadduu guuro maxaa ka dhalan jawaabtaasaad bixin kaa kale hadduu guuro maxaa ka dhalan jawaabtaasaad bixin kan hadduu guuro maxaa ka dhalan idan waxa jaanis jiroo dhan baad xisaabinaysaa marka aad xisaabiso ayaad dhiiranaysaa inaad guurto laakiin garantii maaha inaad guulaysan doonto socankaa maaha in lagaa badiya waa suurtagal idan liidarka dhabta ahi waa ninkaa cayaaraya maxay jas cayaaraya laakiin ma aha nin cayaaraya laadhuuda maxaa la sameeyaa de waad ka quluxquluxsiinaysaa una wixii ka soo boodaa hadday 6 kuu soo baxdana 6 baad guuri haddii 2 ka soo baxdana maxay 2baad guuri that means maskaxda maad isticmaalin waa ku dayba waa muqaamir
marka muqaamaro ma rabno ee waxaanu rabnaa qof garanaya furaska baadi doonaya laakiin fursaddu markuu helo aanay dhaafaynin tijaabinaya waxay yidhaahdaan qodobka afraad waxa weeyaan bay yidhahdeen enable others to act dadka kale u ogolow inay iyana shaqada qabtaan majaalka bannee madaxda iyo liideriska barh baa jecel magaca iyo maamuuska iyo in keligii jiriyow loo qaado markaa in cidibo ka ag muuqato ma jecla good leader maaha kaasi liidarka dhabtii bay yidhaahdaan waa liidarka dadka soo saara waa ninka marka uu dhinto ama booska banneeyo ka tegey rag halkii intay qori isu dhiib weeyaan ile uu noloshiiyo qorigu intay qaadaan intuu la orday ka badan la carari kara john maxwell leveladiisii afartahaa markuu tirinayey levelka koowaad wuxuu odhanaya waa position waa ninkii un kursiga iska fuulay ee dee dadkuna ku qasbana inuu raaco levelka labaad waxa uu ku tilmaamaya inuu yahay permission waa nin dadka nooc min cilaaqa la sameeyey oo dabeetana ay wax u ogolaadeen levelka saddexaad wuxuu ku tilmaamaa production waa qof midho dhaliyey oo dadku ay leeyihiin waa ninkii waxaa qabtoo midhahan lagu daba socdo dadkana taqdiiri levelka afraad bay yidhaahdaan ayuu ku tilmaamayaa waa nin dadkii la socday soo saaray oo waxay leeyihiin recruitingka doorashada marka hore u hagaajiyey oo si fiican buu wax u doortay positioningkana wuu hagaajiyey qofka iyo boosku dhigaya wuu hagaajiyey equipmentkana wuu hagaajiyey bay leeyihin wuxuu qofku u baahnaa inuu shaqada ku qabtana wuu siiyey dabeetana wuxuu ogolaaday wuu delegate gareeyey shaqadii wuxuu ogolaaday inuu qofu shaqeeyo haddaad qofkii ku habboonaa iyo meeshii ku habboonaa iyo wuxuu qaban lahaa wuxuu wax ku qaban lahaa aad qofka siiso dabeetana tidhaahdid go ahead soco waxay leeyihin waa martabada afraad ee qaa'idka waxay idhaahdaan martabadiisa shanaad isaga ee ka dambaysa waxa weeyaan waa qof u taagan dee magacii helay raggu soo saaray helay waa martabada shanaad labadan ba isku dar waxay idhahdeen nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam qiyaadadiisii wuxuu soo saaray reer baadiye niman abuu ka wada dhigay qaada nebigu markuu geeriyooday waxaa ka dambeeyey calayhi salaatu wasalaam saxaabo haliyeeya wada ah oo dunida dawakiyey furtay dunidoo dhan fishankii nebi maxamed ee ahaa diintani waxay gaadhi doontaa guri kastoo dunida ku yaalla ama bicizi casiisin aw bidulli daliilin bay ku gaadhi doontaa fishankaasuu nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam wuxuu lahaa fishan a dadkan inuu janno geeyo adduunkana inuu meel kasta diinta tan gaadhsiiyo saxaabadii ka dambaysay qaada bay noqdeen intay qaadeen aragtidaasi meel kasta geeyey yacni waxay noqdeen dad intuu tababaray uu equibid ka dhigay majaalkana uu u baneeyey qaada noqday marka saxaabo aan taariikhtii hore carbeed lagu aqoon ribciy ibnu caamir iyo mugiirata ibnu shucbi ayaa yaqaan waa nimankii rustam ka wareeriyey dowladdii beershiyey raggii hogaaminayey raggii ka wareeriyey waa nimankaasi waa qaada idan waa level bay yidhaahdaan levelada ugu dambeeya ee qaa'idku uu gaadhay ka mid tahay oo waa maxay enable others to act ha noqonin qof anaaniyo leh wax walba aniga ee waxaad garataa dadkan ku garab socda inaad tababartidoo hore u sii daysid waxay isagu yidhaahdaa labada commitmane haddaad la timaado sidan ay dhacayso waa foster the collaboration iyo strength others buu yidhahdaa kuwa kale xooj wax wada qabadkana biiri waxay yidhaahdaan mumaarasada saddexaad shanaad miyaaba tani waa tii nami tacaawuna qawi laakhariin mumaarasada ugu dambaysa ee shanaad waa encourage the heart bay yidhaahdaan shajic alqalb aw الtaqdiir waxa weeyaan dadku markaad equip garaysa ay shaqada qabtaan ictiraaf wixii ay qabteen maamuusna wixii ay qabteen ictiraaf recognize the contribution bay yidhaahdaan and celebrate the values and victories dadku markay shaqeeyaan shaqada ay qabtaan marka hore ictiraaf
you done well deh shaqo fiican baad qabatay marka labaadna celebrate garee abaalmariyo ammaan oo abaalmarinta sii walidaalika buu nabigu calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisa wuxuu tilmaamayay qofba wuxuu ku fiican yahay amiinu ummatii abaa cubaydata bnu ljaraax arxamu ummatii biummatii abi bakar wuxuu nabigu sheegayey iyagoo nool sida ay kale yihiin nimankani buggooda waxay ku gebagabaynayaan waxay idhaahdaan xanjada isku haysta bay idhaahdeen bulshada iyo hogaamiyuhu waa love bay idhaahdaan kalgacal jeclaanshiiyo practiceska markuu sameeyo bay idhaahdaan traitskaynu soo tilmaamnay ama sifaadkaynu soo tilmaamnayna uu yeesho qaa'idku intaa markuu yeesho dhaqamadaana uu ku dhaqmo waxa dhasha bay leeyihin kalgacal shacabka iyo madaxdu ay isjeclaadaan nabiyullaahi moxamedna calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy alaa ukhbirukum bikhiyaari umaraa'ikum wa shiraarihim ma idiin sheegaa buu nebigu yihi xulka madaxdiinna khiyaar umaraa'ikum xulka madaxdiinna iyo kuwa u shar badanba ma idiin sheegaa buu nebigu yidhi haa baa la yidhi wuxuu nebigu yidhi xulka madaxdu waxa weeyaan kuwa idinna aad jeceshiin iyana idin jecel idinna aad u ducaysaan iyana idin duceeya ma aha madaxdan ku qasabto dadka wadaadkan khudbadda akhrinaya inuu meesha uga soo duceeyo allahuma aslix wulaata umuurina halkan ka soo gura waa wulaata umuur qasab loogu ducaynayo laakiin waxaa la rabaa inay niyada ka timaado inuu kasbaday ninkan madaxda ah in loo duceeyo inuu kasbaday ducadu ma xuma hataa hadduu shar baday inaad tidhahda ilaah wanaaji ila dadkaa la wanaagsanaanaya hadduu wanaagsanaadee laakiin asliyan waxau nebigu tilmaamayaa waa qof idina aad jeceshiin isna idin jecel idina aad u ducaysaan isna idin duceeya ma idin sheegaa buu nebigu yidhi madaxdiina kuwa ugu sharta badan leh hogaamiyaasha uga sharta badan leh waa kuwo idina ah habaartaan iyana idinsoo habaara isna xafiiska markuu galo wuxuu leeyahy waa dadkani waa dad baas ma ummad la wadi karaa baad moodaysaa buu leeyahy habaar baa ku dhacay iyana markay xaggan joogaan waxay leeyihin madax baad moodaysaa waa inkaar qabe wixii meesha yaallay la teg waxba kama tegin idan iyana xantiisa ay habeen iyo maalinba wadaa isna xantoodu wadaa waa kuwa u sharta badan buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam idan waxaynu isweydiin su-aashu waxa weeyaan waa kuwa maqaa'idku waxaynu idhi jawaab waxaa inoogu filan 3 milyan oo bini aadam wixii la weydiiyey la yidhi yaa qaa'ida qaa'idku waxa weeyaan baynu leenahay waa ku ammaano leh oo kafaa'o leh oo mustaqbalka arki kara oo waxay soo taxeen leh waxaynu idhi qaa'idku waa qofka sifaadkaana leh credibility lena leh kalsooni lagu qabo kalsoonidana ay abuurto inuu qof run sheega yahay daacad iyo ammaanana leh oo aan waxaa loo dhiibay cunin waxaan idhi waa qof practice sameeya dhaqan leh 5 shantaa shay oo ku xidhan 10 commitment intaasay nimankani inoo soo gudbiyeen inta ay soo gudbiyeenna cumuuman haddaynu qur-aanka iyo xadiidka ku aragno ka baadhno waa ku arkaynaa idan waxaynu arkaynaa tajribadii bini aadamku uu sameeyey baadhitaankuu sameeyey iyo wixii diintu ina fartay ee mas'aladan ku saabsanayd almost inay isku dhadhow yihiin waa laga yaabaa inaynu ku kala gedisannahay sidee baa loo samayn karaa daacadnimada tan iyo waxa kan innaga factorka ugu weyna sameeya waa maxay waa alle iyo aakhire inu ka cabsado de aliimaanu billahi wa bilyawmi alaakhir ayaa factorka ugu weyne waxa kan abuura si kastaba ha noqotay ayuha alxiba haddaad tahay nin guri hogaamiya 4 carruur iyo hooyadood haddaad hoggaanka u hayso intan baa lagaa rabaa inaad mustaqbalkoodana arkayso daacadna tahay shaqadan aad qaban kartid haddaad shirkad iyo urur hoggaamiso haddaad iskuul iyo arday hoggaamiso haddaad hal fasal hoggaamiso haddaad imaam masaajid iyo inta ku tukato hoggaaminaya tahay haddaad suldaan iyo caaqil tahay dad hoggaaminaya haddaad tahay siyaasi ummadeed oo ummad raba inuu hoggaamiyo sifaadkaa iska baadi doono haddaad u dhalatayna sii soofayso dhaqamadaa laga rabo hoggaanku inuu yeeshana yeelo markaasaad helaysaa dadka kalsoonidooda iyo ducadooda iyo taageeradooda iyo ixtiraamkoodaba markaasaad helaysaa
idina waa inaynu ku talagalnaa haddaynu kuwii rabbi uu ka dhigay baadidoonka ku weyno ilaan dadka waa la baadi doonaa akademiyaad bay dunidu leeyihiin bulsho kasta raabiya dadkooda raadceeya dadkooda ah leadership leh sifaadkaa leh dabeetana way sii tababaraana waxa loo tababaraa qaadada mustaqbalka inay ama waa inaynu raadinaa ama waa inaynu tababaraa innagu labadiiba intaynu ka gaabinay ayaynu rabnaa inuu samadun ka soo dhaco ilaahay dee haddaynu baryada badina wayna siin karaa laakiin aan ku darra maxay ficilka aan ku darro sala allahu calaa muxamedin wacala alihi wasaxbihi wasalam walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin